السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada waa idin jeclahay subscribe saara like share maanta waxaa idin wadaa qiso cajiib ah oo qiso dhab ah oo dhacday ah waxayna ku bilaabanaysaa sida tan dhageysi wacaan laba haweena oo Mareykan ah ayaa isku mar umulay midi waxay dhashay wiil tan kalena gabar qalad ka dhacay kalkaalisooyinka ayaa sababay in la kala garan waayo mid dhashay wiilka iyo tan gabadha dhashay mid waliba waxay ku andacootay inay iyadu dhashay wiilka wiil jecela umadu ma yaabteen intaa kadib waxay dhaqaatiirtu baareen dhiiga DNA-ga maadaama ay isku qabsadeen labadii cunug la kala garan waayo nasiib darro waxay noqotay natiijadii mid aad isugu dhow taasoo arrinka ku sii cakirtay dhaqaatiirtii mana aysan awoodin helida xal dhaama si kastaba ha ahaatee arrinkii wuxuu gaaray muslimiinta muslinkana waxay sheegeen haddii sheekadu halkaas soo gaartay cid aan iyagu ahayn inaysan xalin karin dhaqaatiirtii isbitaalka oo fadeexad iyo culays weyn dareemayay ayaa waxay raadiyeen muslimiintii waxay soo kaxeeyeen wadaadda diinta islaamka ku xeel dheer waxayna labadii dhaqatar ku dhaheen wadaadadii mid ka mida miyaydan nagu oran jirin wax kasta diinteena xal u ah wadaadkii wuxuu yiri haa waa sidaas oo ilaahay baa kitaabkiisii ku yiri maa faradnaa fil kitaab min shay wax aan quraanka uga tagnay ma jiro dhaqaatiirtii waxay soo dulmareen qisadii labadii hooyooyin oo isku qabsaday caruurta wadaadkii wuxuu yiri waa arrin sahlan waxaa baaritaan ku sameysaan dhibcaha caanaha mid kasta oo labada hooyo ah midii caanaheedu uu culays iyo nafaqo badnaado ayaa dhashay wiilka midii caanaheedu uu khafiif noqdana gabadha saas u fakar lahaydeen adinka asxaabe ma sha Allah cilmigiisa Allah u siyaadiyo sheekhaas ilaahay baa quraankiisii ku yiri lidakari misla hadal isnayn in labku la mid yahay qayb laba dhadiga ilaahay hore noogu sheegay waxaa gaaladii istacajab ku noqotay in awoodda iyo nafaqada mid ay noqoto laba jibbaar sidaasna ay ku yaqiinsadeen midda wiilka dhashay subxaanallah waa arrin cajiib ah asxaabay ka warrama balse waxaa liyeen islaamka wax looga taga ma lahan ilaah subxaanahu wa tacaala wax walba adduunkan wuu noo sheegay qur-aankiisuu noogu sheegay subxaanallah qisadan ma la yaabteen asxaabee waa qiso cajiib ah oo cilmiyeysan dad badan oo dhaqaatiirtaas iyo dad badan ay ku jiraan sidaasay kusoo islaameen islaamka wuxuu yahay oo saxda ah ay ogaadeen oo gaalo badan qalad ay ka fahansan yihiin islaamka ma sha Allah ilaahu islaamka badi oo barakee asxaabteyda qisadii intaasay ku ekeed qiso aan la yaabay eed aad iyo aad asxaabtiina u sheer gareeya like share comment subscribe waa dhankiina inta hore ila joogta aad aan kugu mahad celinayaa inta cusub hadda arki doontana subscribe saara asxaabteeda aad aan soo dhaweynayaa qisooyin kale iyo waxyaabo kalena waa in soo wadaa insha Allah hadduu ilaahay nafta nagu simo dhammaantiin khayr idin dhaafay مع السلامة باي باي.